السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان صحابتي وأنا سلام يا ميل باجوتان مقعي واباشا قادر موسى channelka daawanaysaana waa baashi Fixer Portfolio channelka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar asxaabtaadana u share garee saa la socotaan baa badanaa channelka waxaa kaga hadalnaa suuqa cryptocurrency-ga forex-ka iyo sidoo kaleba online-ka iyo sida waxa weeye looga faa'iideysan lahaa hadday noqoto waxa weeye in lacag laga sameeyo ama hadday noqoto xag cilmiba in looga faa'iideysto saa la socotaanba ayaanta waxa weeye maanan update maana ahayn laakiinse hadda kadib insha allah waxaan ku dadaali doonaa inaan waxa weeye halkan update ka noqono suuqa cryptocurrency-ga oo aanan waayahan ka hadal maadaama hoos u dhac uu isaga jiray ayaa waxaa moodaa hadda inuu sameynayo sare u kac fiican ama uu dib u soo laabanayo bitcoin-ka oo muddooyinkii u dambeeyeyba u socotay dhanka hoose ayaa hadda moodaa inay waxa weeye sare u kac fiican soo samaysay ayadoo ka soo laabatay waxa weeye ilaa iyo dhowr iyo toban kun haddana maraysaa 36,000 runtii waxa weeye waana ka soo hadalnay iyadoo hoos u socota oo waxa weeye waana sheegnay inay waxa weeye kor soo aadi doonto dee falanqayntii hore waa ku laaban kardhaan waa ka soo hadalnay cryptocurrency-ga oo haddii aad YouTube-ka dib u raacdaan in ay soo laabanayso oo ay bulba ku maqan tahay waa sheegna waxaan rabnaa insha allah hadduu la yidhahdo caawa inaan isla fiirino laba crypto coin oo haddii aad waxa weeye hadda aad maal gashato weli aad waxa weeye fursad haysta inaad ka faa'iidaysatid lacag fiicanna aad ka samaysid waxaan ku hormarayaa mar walba lacagta aan la gelin karin waxa weeye shakiga waa bitcoin-ka oo bitcoin-ka waxa weeye haddii aad maal gashatid markaa maal gashanaysid bitcoin-ka waxaan kula talin lahaa qol wixii ka badan inaad waxa weeye ku maal gashataan maadaama haddii $100 aad maal gashatid dee waxaad ka helaysid hadhow haddii xataa sare u kac fiican samayso iska yadhahay inuu qofkii awoodo waxa weeye lacag fiican u gashado kadibna waxa weeye macquul in ay meeshii ay ka soo laabatay waxa weeye dib u jabiso marka waxaan fiirin doonaa mar walbana markaa lacag maal gashanaysid oo crypto ah mar walba waxaa fiirisaa bitcoin haddii aad forex ku ogeyd markii aad lacagaha rabtid inaad falanqaysid inaad marka hore lacagta dollarka iska soo fiirisid haddaba waxa weeye markii aad rabtid inaad falanqaysid suuqa cryptocurrency-ga waa inaad bitcoin-ka mar walba falanqaysaa bitcoin-ka haddii aan dib ugu laabano oo aan fiirino coin market cap-ka waa ujeedaan wuxuu marayaa 37,000 buu marayaa almost maanta wuxuu kacay 1.39% muddooyinka u dambeeyana waxa weeye sare u kac mataqaanaa fiican buu ku jiray oo kor unbuu u socday market cap-ka waa ujeedaan waa 723 bilyan 302 milyan iyo 814 kun iyo marka hadba waa isba bedelayaa ujeedaan market cap-ku every second waxa weeye wuxuu iska dhigayaa update iska dhigayaa volume-ka 24 hour-kii u dambeeyay waa ujeedaan 11 bilyan baa soo gashay 515 milyan iyo 363 kun iyo 222 24 hour-kii u dambeeyey dadka lacagaha gashaday bitcoin-ka xogaa waxay hoos u dhacday 5% marka loo fiiriyo shalay so haddaan fiirino bitcoin-ka falanqayntiisa mar walba marka halkaan timaadid qaybta trading view-ga la doortaa kadibna waxay toos kugu geenaysaa trading view-ga haddaba markaa falanqaynaysid bitcoin-ka mar walba waxaa fiican inaad kasoo bilowdid higher time frame-ka so waxaan ka bilaabaynaa oo kale 1 month-ga waa ujeedaan lacagta haddii aad ku laabataan fideogeenii hore xataa waxaan kasoo hadalnay bitcoin inay ku maqan tahay down inay hoos socoto kadibna ay sare u kac soo samayn doonto marka bitcoin waxay aaday kor bay aaday way soo laabatay waxay timid almost 17,000 kadibna maxay samaysay kadibna waxa weeye dib bay u laabatay marka xagee laga yaabaa inay aado oo macquula inay waxa weeye tagto dadkii bitcoin markii ay meelaha ka maalgashaday oo kale halkaas markay maraysay oo dib loola soo laabtay waxaa laga yaabaa qayb inay khasaaradooda meelaha ku xireen qaybna meelaha ku xireen laakiin qofkii waxa weeye hayay oo lacagta waxa weeye mataqaanaa bitcoin-ka u maalgashanay asagoo khasaare ku jira usii dulqaatay almost waxa weeye waxaa macquula inuu hadda faa'iido ku jiro marka dad baa waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan hadda bitcoin wuxuu ku jiraa bullback waxa yar buu dib u laabanayaa ba waxa laga yaabaa inay saa u fakaraan maadaama bitcoin saa aaday hoos u soo aaday waxaan inay tahay correction
kadibna waxa weeye hoos la sii aadi doono laakiinse lacagtan overallkeedu waxa weeye waa impulse correction another impulse in la jebin doono meeshii u sarreysay uu gaaray bitcoin oo ahayd 67,000 almost wuxuu gaaray 69,000 buu gaaray waa 70,000 adi waxa weeye qarka u fuula marka hadda waxa lagu jiro inaysan pullback ahayn sida pullbacku markuu suuqu uu samaysanayo pullback ama markuu rabo inuu sii daarto wuxuu samaystaa correction waxaan hadda correction waa dhigi karo haddaa fiirisaan oo correctionku waxa weeye waa inuu saa ahaadaa waa inuu saa usoo laabtaa suuqu saa u rartaa rafasho saasoo kale galaa kadibna waxa weeye soo daataa halkaana ay noqotaa correction laakiin haddaa fiirisid qaabka hadda ay ku socoto bitcoin qaabka hadda bitcoin ay ku socoto waxaa moodaa inuu yahay impulse waxaan kale oo hadda dhacaya correction inuu meelaha ku geli doono kadibna uu sii socon doono halkaana waxa weeye ay noqon doonto flag inay noqon doonto halkaa la jebin doono kadibna waxa weeye highgaa la jebin doono sidii sanada suuqu waxa weeye waa impulse correction impulse marka waxaa dhici karta in suuqa correctionka mararka qaarkood uu sameeyo deep pullback uu sameeyo oo si fiican uu usoo laabto sida hadda dhacday oo kale laakiin wuxuu ixtiraamay last higherkii u dambeeyey oo la jebiyey dib looma soo jebin waa la ixtiraamay kadibna waa laga dhacaa halkaa markii la yimid oo ahayd pullbacka saxda ahaa qofkii ka maalgashaday 19,000 ku maalgashaday maanta runtii waxa weeye lacag fiican buu ka hayaa marka lacagta hadda maxaa ka sugaysaan lacagta hadda waxaa ka sugtaan bitcoin-ka waa lacagta ugu horeysa oo number 1 noo ah maanta waan idinkula talinaya inaad maalgashataan so bitcoin xagee baa ka maalgashan kardhaan bitcoin waxaa ka maalgashan kardhaan hadda waxay maraysaa 37,000 bay maraysaa 37,000 bay hadda maraysaa marka waxaa sugtaan bitcoin maadaama areadan ay jebisay oo ahayd area aad u adag oo mar laga soo celiyey haddaa fiirisaan in ay dib u jebisay way jebisay hadda maxaa sugnaa marka in yar oo pullback ah oo areada la jebiyey in waxa weeye dib loogu soo nasto halkaa markii la marayo ilaa 33,000 ay dib ugu soo laabato waxa u qaadan kardhaan ilaa all the way 69,000 waxay u badan tahay markaan in la jebin doono haddii la jebin waayo waa macquul in dib loo soo laabto kadibna mar labaad la jebiyo halkaasna waxa weeye uu rafasho ay ka dhacdo kadibna korsaa loo aado so waxaan kula talinayaa lacagta koobaad aad ka faa'iideysanaysaan inay noqoto bitcoin mar walba bitcoin waa muhiim qofkii $500 haysta qofkii 1,000 heli kara qofkii 2 heli kara ka badan qofkii heli kara inuu waxa weeye maalgashado ayaan kula talinayaa waxa hadda socdana waxa weeye waxay caddaynaysaa mar haddii suuqu saan u soo dhaqaaqay meelaha inuu tago wax yar soo laabto halkaa rafasho ku gala wax yar halkaana uu flag ka abuurmo large flag and then halkaa waxa weeye saa lagu jebiyo possibility kale ma dhici kardhaa in halkaa la jebin waayo meelaha saa uu rafasho suuqu ugu galo oo bitcoin saas ay ugu gasho mataqaanaa halkaas range oo wax dhici kara laakiinse suuqu hadda xawliga uu kusoo dhaqaaqay ama impulsiga ma u malaynayo waxa weeye in halkaa rafasho saasa lagu gelayo marka waa xilliga ka faa'iideysan lahaydeen bitcoin oo aad maalgashan lahaydeen midda labaad waa maxay rabaa inaan ka hadlo lacagta labaad aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye lacagta la yidhaahdo solana so waxaa ku qoraysaan serjinka waxaa ku qoraysaan solana ama haddii kale haddaad saa waxa weeye u raacdid lacagaha darajooyinkooda halkaasaa ka eegi kardhaa bitcoin baa ugu horeysa ethereum baa ku xigta USDT baa ku xiga BNB baa ku xiga XRP baa ku xiga lacagahan dhan waa lacaga fiican oo mar haddii listiga top 10ka ugu horeeya inaad maal gashatid waxa weeye aad bay u wanaagsan tahay laakiin lacagta labaad oo aan rabo waxa weeye aan ka hadlo waa solana almost waxa weeye lacagta waxaan dhihi karaa waa lacagta bisha oo maalin kasta waxay samaynaysaa sare u kac ballaaran haddaa fiirisaan market capkeeda 24 hourkii u dambeeyey wuxuu sameeyey sare u kac 5.30 ah 26 bilyan baa waxa weeye la soo geliyey 49,708,583 so waxa weeye waa sare u kac ballaaran laakiin 24 hourkii u dambeeyey haddaa fiirisaan last 24 hourkii u dambeeyey 3% baa valiumka ah lacagta lasoo mataqaanaa valiumka dhex wareegaysa camal oo kale taamay supply-ga la yiraahdaa total supply-ga weey laakiin valiumka waxa weeye waa inta valium suuqa soo gashay market cap-keeduna waa intaas macnaha waa inta 24 hourkii u dambeeyey inta solana dhex wareegaysa camal oo kale marka lacagtan
haddaan iyada laftigeeda qiimeyno trading view mar walba tag kadibna maxaan ku yidhi kadibna waxaa fiirisaa mar walba monthlyga tag haddaad crypto aad rabti inaad maal gashatid mar walba high time frame kasoo bilow. Solana xagee bay tagtay? Solana waxay soo samaysay iyadoo halkaa joogta crash baa kusoo dhacay 260 iyadoo maraysa kadibna waxa weye way soo laabatay aad bay u soo laabatay waxaa la yimid bottomkii meeshii ay kasoo bilaabatay baa loo soo dhowaaday laakiinse maxaa saaciday waxaa saaciday ereyada ay kasoo laabatay ereyada ixtiraamtay oo ah halkan waxaa ku jira waxa weeye halkan haddaa fiirisaan area zone adag baa ku jira zonekaasaa la ixtiraamay kadibna waxa weye waa laga dhaqaaqay marka hadda maxaa rajaynaynaa maadaama hadda waxa weeye si xawliga looga dhaqaaqay solanana soo kabasho fiican ay muujisay in lacagta solana la yidhaahdo markay ugu yaraato ay gaari doonto haygaas meesha ay kasoo bilaabatay oo ah 246 halkaana maxaa ka dhacay halkaana imbalance awoodla ka dhacay maxaa sugaynaa markaa waxaan sugaynaa ereyadan la jebiyey halkan waxay ahayd zone aad u adag oo 2 jeer laga daatay haddaa fiirisaan markaa waxoogaa waa laga daatay waa la jebiyey markii labaadoo la yimidna dib baa loo jebiyey zone aad u adag bay ahayd kadibna waxa weeye waa la jebiyey marka hadda maxaan sugaynaa in wax yar zonka test yar lagu sameeyo kadibna all the way ilaa halkaas la gaaro oo targetka koobaad ah oo $133 ah kadibna targetka labaad oo ah ilaa iyo 240 260 in la gaaro haddii halkaas waxa weye si xawli ah lagu tago way iska caddaa inaan dib loo soo laaban doonin oo haddii xawli lagu tegayba meesha correction ugu geli doono kadibna waxa weeye la jebin doono meeshaas so lacagtaasna waa lacag fiican XRP laftigeedu aad bay u fiican tahay oo haddii aad maal gashanaysaan runtii waxa weeye laftigeedu waxaan is dhihi karaa faa'iido fiican baa ka samayn kardhaan ama faa'iido ballaaran baa ka samayn kardhaan so anigu ma ihi financial advisor ma ihi dadka inay khasab inuu kulama talinayo haddii aadan baaris kale aadan samaynayn ama xog badan aadan raadinaynin inaad iska maalgashato lacagahaas waxaan ku dhihi lahaa intaan waxa weye cilmi ahaan u qaado kadibna waxa weeye baaris samee kale kadibna waxa weeye maalgasho aad iyo aad baa inii salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu